qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa dhaliilo u soo jeediyay maamulka degmada Gabiley oo ay ku eedeeyeen inay ku kaceen falal musuqmaasuq oo ay sheegeen inay curyaamiyeen horumarkii degmada Gabiley. waxa kale oo ay xuseen in mashaariicdii GBLG-ga ee degmada Gabiley ay wali qabyo yihiin qaarkood isla markaasina qaar ka mid ah jidadkii cusbaa ay daadadku jareen waxa ayna carabaabeen in ay arrintaasi tahay mas'uuliyad darro ka timid maamulka degmada Gabiley. dadweynaha arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa maanta waxaan doonayaa halkan laba arrimood ka cadeeyo. midda koowaad waxay tahay anigu oo muddo 17 sano ah ku soo jiray arrimaha bulshada ama horumarinta ururada horumarinta bulshada inaan dadweynaha reer Soomaaliya iyo gaar ahaan reer Gabiley u cadeeyo in aan uga diga rogtay dhinaca siyaasadda kooylaatankii bishii November ee ka dhamaaday bulshada reer Soomaaliya iyo reer Gabiley waxaan soo bandhigay macluumaad muhiim oo ku saabsan miisaaniyadii dawladda hoose 4 sano ee dawladdan xisbiga ku miyay jirtay qaabkii wax loo qaybiyay iyo qaabkii wax loo dhigay. waxaan arkaynay in arrimaha bulshada ama adeegyada asaasiga bulshada oo ay waxbarashada ka mid tahay caafimaadka ka mid yahay beeraha oo dadweynaha reer Gabiley 90% ka badan ay ku tiirsantahay noloshooda waxyaabaha ka gaaray. tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada waxa lagu sheegay 230,000 oo dollar lacag ka badan inay gashay. mas'uuliyiintii wasaaradda waxay noo sheegeen in ay lacag noocaas oo sektorkooda gashay aanay jirin. sidoo kale wasaaradda waxbarashada beeraha waxa lagu sheegay 370,000 oo dollar lacag ka badan in beeralayda lagu tababaray oo xirfad beeralayda lagu tababaray lagu sameeyay mana jirto. caafimaadka oo kale lacag dhowr iyo 50,000 oo dollar iyadana saas oo kale u qoray. waxa meesha ka dhacay waxa weeyaan musuqmaasuq weyn. haddii lacagaha la isku soo daro 5% kama noqonayso miisaaniyadda idil Gabiley gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay ilaa 5 milyan oo dollar ay miisaaniyadda dawladda hoose. haddii labadii sano ka horreeyay lagu darana ilaa 7 milyan iyo bar lacag ka badan baa meesha waxa inooga muuqda musuqmaasuq xad dhaaf ah. lacag meel ay martay iyo cid ka mas'uul aan la garanayn waxa la leeyahay sheegay in horumarin lagu sameeyo oo horumarka la gaaray Gabiley baad ka garatay dawladda lafteediiba lahayd maalinta dhaweyd ilaa marwada ay meesha yimaadeen. waxa soo dhan waxaan ognahay in aan waxba ka jirin. dawladda waxaan ka codsanay markaa in ay arrintan baaritaan rasmi ah ku sameeyso musuqmaasuqan meesha ka dhacay loo wada cidii mas'uuliyad ka lagu qaado dadweynaha laga qanciyo in ay horumar gaareen kale gaar ahaan madaxweynaha uu toos fariin meediyaha u mariyay waxba kama soo dhacin. dhowr iyo 10 cisho ka soo wareegtay laga bilaabo maanta waxaan doonayaa in hadii ilahay idmo dadweynaha ogeysiino oo sheego aan ka codsano in saxiixiyadooda noo keenaan ilaa 2,300 oo saxiix oo dadweynuhu ay ku codsanayaan in baaritaan lagu sameeyo dawladda culays lagu saaro. waayo haddii aanad ugu xisaabtamin cid ku xisaabtamaysa ma jirto. dadkii iyo hanti dhawrihii guud iyo nidaam 100 jeer bay yimaadeen waxay ka soo saareen ma jirto meesha waxba laga qabtay oo musuqmaasuq dhacayna ma naan maqal waxba hagaagayna kama naan maqal. bilaabo maanta waxaan doonayaa inaan 2,000 oo saxiix madaxweynaha toos ugu gudbino oo ku niraahno waxaan halkay mareen dadkan maada ku sidaas kula shaqeynaysa ilaan dheer oo arkaysaan maanta waxa ka taagan sirimadii waxa weeyaan waxay hoos tagaysaa arrimaha musuqmaasuq ay ka jiray degmada Gabiley 2 bilood ee shaqaaluhu aan lahayn wadadan imika halkan marta ee gogoaysa waan ku qaylinay waa xaqaatay mashruuceega waxa lagu talagalay inay contract qaataan oo sameeyaan shirkado wadada dawladda hoose sameysay qaaynimadii ugu weyneed GBLG ka dhacday Gabiley iyo musuqmaasuqa GBLG-ga ay sheegato inay sameynaysaa ka dhaca waxa weeye wadada xaqaatay dawladda hoose oo sameeyay waxay sameeyeen in ninkum bani la ay ku raadaan adigu contractka noo saxiix annaguna lacag soo qaadano. maxaad ka cabanaysaa? maxaad ka cabanaysaa? waxaan ka cabanaa biyo la'aan. waxaan ka cabanaa sariimadii meehan qashana xalkii han weynay. waxaan ka cabanaa suuliga biyo lahayn. waxaan ka cabanaa nadaafad darro. ay nadaafad darro ku cabanaa dawladda u sheeganayna. waa in dawladdu nadaafadii way naga dhimatay dibadii baa noo dhaantay xisnada waxya male waan gari weyna qarmuuqiisii guriyihii way naga dhinteen la noo dhisay cadcada meelan dad ku shidaan weynay meelan biyo ku shidaan weynay laacad badan ku xitay Iskariye Raage Ibrahim Royal TV Gabiley.